السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم وحليه خلتان لا يحافظ عليها عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 ذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحليه لبا شيء hadduu qofka mu'minka ilaaliyo uu joogteeyo uu ilaaliyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu gelinayaa ilaalinta uu ilaaliyey labadaa shay sababteeda ilaahay wuxuu ku gelinayaa janno. ilaahay jannadiisa ayuu gelinayaa. labadaa shay samaynteeda in la sameeyana way fududahay, laakiin inta samaysana way markaa yar tahay. nabiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka markuu salaad kasta ka baxa wuxuu oranayaa 10 jeer subxaana allah subxaana allah subxaana allah, 10 jeerna wuxuu oranayaa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah, 10 jeerna wuxuu oranayaa allahu akbar allahu akbar. qofkii markuu salaada ka baxo intaa yidhaahda kadibna howlihiisa raacda intaa uu sameeyey wuxuu ku geli karaa jannada ilaahay subxaanahu watacaala. haddii aad joogtayso oo aad noqoto mid joogtayo mar walba sameeya janno ilaahay baa ku kasbanaysaa. nabiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi wadaalika taasi waxay la mid tahay oo qofka isagoo ka sameeyey carabkiisa wuxuu ilaahay abaalmarin ooga dhigayaa. fiiri, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ooga dhigayaa sidii 150 weedh uu carab ka sameeyey. allahu akbar, waa 30 eray midiiba waxaa lagugu dhuftay maxay 5 markaasay 150 noqotay. allahu akbar, marka 150 shay eray oo aad afka ka samaysay la mid noqonaysa. miisaankana maxay kuu noqonaysaa qiyaamo? miisaanka qiyaamana ilaahay wuxuu kaaga dhigay 1500 fi miisaan. 1500 ayuu ilaahay miisaanka kuugu bedelayaa. 1500 oo abaalmarin ayuu ilaahay miisaankaaga ilaahay saarayaa. haddaba midda labaad waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka markuu seexanayo allahu akbar 34 jeer yidhaahda, subxaana allahna 33 jeer yidhaahda, alxamdu lilahna 33 jeer yidhaahda. qofkaasina nabiga wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasallam in hadduu joogteeyo uu janno ku kasbanayo. muxuu abaalmarin u helayaa? nabiga wuxuu tilmaamay in 100 billisaan 100 eray isagoo afka ka sameeyey ayay markaa ola mid noqonaysaa. miisaankana waa 1000 fi lmiisaan. 1000 abaalmarin ayuu ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiisa u saaraya. haddaba waa laba shay waxaan isku dardaarmaynaa, laba shay inaan samayno oo aan joogtayno ilaalino. labadaa shay janno ilaahay ayaan ku kasbanaynaa. samaynta labadaa shayna aad bay u fududahay, laakiin inta samaysa waa yarta. ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaya inuu labadaa shay kuwa joogteeyo oo sameeya inta yar ay samaysay inuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu daro. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.